maxaad ku ogaan kartaa jirkaada inay ku jirto isha qumayada ama il ku jeclaatay ama il ku xasaday ama dad dhow kaaga imaatay ama dad kaa fog qaraab ahaan iyo asxaab ahaan kugu dhow ama kaa fog kaaga imaatay waliba ishaasoo hal mar aan ahayn laba jeer aan ahayn saddex jeer aan ahayn il badatay oo iska dabatimid koron jirkaada ku noqotay maxaa ku dareemaysaa dhaqankan haddaad leedahay isha noocaasa oo koronkorada ah oo tirada badan ayaa jirkaada ku jirta negative-ka noocaasa calaamadaas waa maxay waxbaad qorshaysanaysaa shay baad qorshaynaysaa inaad furatid ama aad samaysid safar oo kale ganacsi oo kale meel inaad ugu wareegtid meel hadda joogtid oo kale adiga qorshaad samaysanaysaa waa la ogaanaya marka qorshihii dad baad u sheegin ama si kale ogaanaya markii la ogaado waa kaa fashilmaysa arrintii cilada ma leedahay yacni shaygaadaan mar allaala marka la ogaado oo dadku ay ogaadaan ama adigu aad sheegtid waa kaa kala daadanaya shayga adoo ay kusoo dhow yahay oo aad rabtid inaad qorshahaadii gaartid arrintii inaad ka miro dhalisid arrintaadii inaad gaartid marka allaala markaad isleedahay hadda gacanta ku dhigi rabtaa bay kaa kala daadan hal bacaad lagu lisay markay ogaadaan heblaayo hebel kale ama adigu aad sheegtid dadku markay arrintaada ogaadaan waaba kaa kala furfurmaysaaba waxaa qofkaasi haysta jirkiisa ku soo noqnoqotay oo tira badan oo sanado badan iska daba iimaanaysa ama jacayl ku soo gasho ama xaasidnimo ku soo gasho dadka qaar isha waa u nugul yihiin dadna say ku haleesho waqti bay qaadanaysaa dadna waa u nugul yihiin hadba qofka ilaahay sidoo abuuray dabeecadiisa ishuna ayadaa ka khatarsan xasadka iyo sixirka waayo number 1 waa xanuunada ruuxiga xasadkuna waa number 2 sixirkuna waa number 3 jinka iyo shaydaanka lagu sheegayna saddexdaas ka dhex shaqeystaa oo adeega u yahay marka isha ugu khatarsan waana mid nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam qadarka ilaahay kadib dadku waxay u dhintaan isha ugu weyn ayaa nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wasallam marka waa halis iska daawe xasadka xanuunadan ruuxiga halistooda leeyihiin gabadhii guriga shaqadii guriga waa nacaysa waa caajis baa ka saar halkaas telefoon la fadhida inay filimaanta daawato oo fududahay laakiin inay laba weel isku aadiso ama weelasha guriga ka shaqeyso waa ku adagta caruurtu wax ma siinayso heblaaya wax uu qabo gabar la joogta ama shaqaale u ah ayadii dhan xagga waa laga xiray laakiin online kaan iyo telefoon ku mashquulsanto oo fududahay caajis baa ka galay gabadha waxa laga yaabaa markay suuqa aad inay xanuunsato xataa adeeg inay banaanka u aadato xanuunsanaysa madaxa qacal lagu siinaya guriga ku haysataa marka banaanka waa ka cabsanay dadka inay dhex gasho waa ka cabsanaysa hadaan baxa ama dhinta ama gaari jira bay leedahay suuqa markay aad ayadoo madaxa jabanya imaanaysa ama goobta waxbarashada iskoolka aad ama college-ka ayadoo madaxu intaasoo daadanayso imaanaysa cagku mar dambe ma aaday waxbarashada way nacaysa marka dambe nolosheeda waa ka soo xirmaysa guriga lagu soo oodaya ninka active ka ahaa ee shaqaysanayay shaqadii waa nac shaqa u soo baxaysa wiilkii ama gabadha u soo baxaysa mar rabo leeyahay meel kale geey waxa isku soo dubaro documentiga shaqa raadso u raadsanaya u soo baxaysa ma aaday waa ka fariisanaya ama laba bari markuu jooga waa laga dalfinaya taraaga dadka ugu daran xaggan qurbaha Mareykan iyo dhulka taraaga ninka wada waxa laga yaabaa taraagiisaas inuu iyaan ku haysto si fiican u wado ma sha Allah dadka qaar waxay leeyihiin taraaga xoolo badan laga shaqeystaa warkii baa badnaanaya taraag ma ka shaqeeyaa buu leeyahay uu sheegaya maalinta dambe taraagi waa istaagayaaba wax ka istaajiye la garan mayo ama kambariga wuxuu leeyahay iska soo dhiib furaha oo hadduu soo gaariga lahayn furaha iska soo dhiib maxaa sabab waxba looga sheegay mid kale tagaya wax yar wadaya waa laga fariisanaya ama asoo hadduu gaarigu lahaa gaariga waa fariisanayaaba cilada aan la aqoon iska daba imaanaya oo nooc kala ah shaqo waaya asaga dhan ba fariisanaya yaani dadku shaqo waayaan waana helaan gaarigu waa ciladooba waana la cilad bixiya waa wax normal oo dabiici laakiin midaan dabiiciga ka baxsantay qofkiiba afka haysta oo ku haya maxaa xagee la iga haysta maxaa igu dhagan ama waxa laga yaabaa taraagi intuu iska dhigo inuu aado wadan kale oo aan Mareykan ahayn oo meel kale lacagta yar shaqayso ku soo gubo iskana fariista meeshii halka laga soo dhaqaajin waa cilada haysta waay dadka maantay zamankan waxa haystana waxa kowka ah waa isha iyo xasadka labadaas ugu khatar badan qofkii doonaya marka in xanuunada ruuxiga iyo waxyaalahan uu fahmi waayo inuu xalkooda helo xafiiska la talinta arrimaha ruuxiga iyo qoyskaba iyo xanuunada ruuxiga la talinta daawadana gacantada galiya isku dayay insha Allah ta'ala ama quraan doonaya ilaahay idinkiis in la saaro oo shayaadiintan laga saaro oo xasadkan ay ku beereen shayaadul insi laga saaro ishaanay ku koronkorada ku noqotay in laga saaro laga nadiifiyo doonaya insha Allah ta'ala waxa idin sameeyaa xafiiska lambarka idin sheegaya +25 472277271 بمعنى والله مركية تاسد كسو قليسة إن شاء الله تعالى
tala iyo xal iyo wixii arrintaadu meeshay ka jirto ayaad fahmi doontaa insha Allah ta'ala